waxa ku jira kheyraadka loo heli kara kheyraadka waxa loo heli karaa in qarab loo helo in aqoon loo helo in nabad loo helo inta hadii la helo kheyraadku sahal loo heli karaya laakiin haddaan loo helin aqoon aan qalbna loo helin nabadna loo helin baddaas kheyraadka dad kale ka faa'iideysanaya iyo in yar burcad badan ka faa'iideysanaya dadka inta qabtaha ka faa'iideysanaya laakiin badda Soomaaliya kheyraadkeeda Soomaaliya uu ka badan yahay adduunka u baahan adduunka soo faa'iideystana in qof kale anaka aan maaragta ku xirnaan oo qof kale aqoontiisa iyo qalabkiisa iyo aan daba taagnaan waa laga fiican yahay maxaa marka la abuurayaa leedahay in dadka aqoonta leh ee qurbo joogta ama jaaliyadaha Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed general maxaa kaaga adigu faraysa ee dalku u baahan yahay waxaan farayaa aniga intaan meeshan maanta ana imaan ka hor waxyaalo fara badan oo iga maqan halkan ku bartay ganacsi yar baan ahay oo hadda shaqo ganacsi bilaabay kalluumaysiga fikir baan watay markaan halka imaanay mid ka weyn baa hadda galay waxaan kaloo arkay ummadda si ay u kalluumaysato si ay u shaqaysato aqoonta iyo expertise dadka ay wataan baan arkay waxa ay soo baxday kheyraadkan haysanay iyo aqoon la'aanta dan haysato marka waxaan ku tarinayaa ku celinaya ku boorinaya ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsiyaasha Soomaaliyeed iyo waaridka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa carruurtooda in qaar ka mid ah ay baraan sida badaha kheyraadka loo shaqaysto sharci ahaan baa loo baahan yahay qof aqoonta badda leh sharciga ahaanta yaqaan loo baahan yahay scientist loo baahan yahay waxa loo baahan yahay nin dadka kalluumaysiga oo doomaha wada waxa loo baahan yahay dadka mataqaana maaragtay ganacsi geeya oo aqoon u leh kalluunka marka halkan aan nimid kalluunka waxa lagu weydiinayaa waxa lagu leeyahay scientific name kalluunkaas muxuu yahay Latin name kalluunkaas muxuu yahay waxa lagu weydiinayaa waxyaalaha aan anaka soo diyaarsan oo ku soo diyaargaroobay ka mid tahay marka dambe hadda barashay ahayd waxaan baranaynay Soomaali ahaan haddaan nahay ama gobol taqaana ganacsade ama dawlad ama wax kasta waxaan u baahannahay marka dambe oo sanadka dambe la imaanayo showgani waa showga halkan lagu dhiganayo waa show sanad la ah weeyaan sanadka dambe marka la imaan anagoo diyaar ah oo aqoonyahankii scientisti dawladda way socotaa way timid ganacsadihii qof kasta wadan inaan nimadna loo baahan yahay dalkii maadaama ka timid dad badan oo qurbo jooga Soomaaliya ay jiraan aan dalka ku dhiiri karin waxa ay ku dhiirinaysaa waxaan ku dhiirin lahaa qofka naftiisa u hun wadankiisa waddankiisa kuma noolaan doono qofkii hadda yimaado waddanka ay aqoonta ka faa'iideysan doono